daawadayaal kusoo dhawaada Som TV Oregon barnaamijyada ka daawatiin channelka 12aad oo Washington County ah iyo channelka 12aad oo Portland Oregon waxaan maanta halkan ku marti qaadnay Somali Student Association oo Portland University ka dhigta in hay'adaas oo maaragtay dhalinyaro badan oo Soomaali gabdho iyo waliba isku jira ay isku kaalshadeen inay sameeyaan ayaan halkan ku marti qaaday stuudiyaha marka hore waxaan ku bilaabaynaa halkan ila fadhiyo stuudiyaha Cabdirasaaq Yuusuf asaa nii sheegi doona kulay qaybta waxa uu ka sameeyay meesha bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdirasaaq Yuusuf waxaan aadaa Portland State University in Oregon waxaan dhigtaa international studies wax lagu magacaabo ama duruusta cilmiga marka waxaan ku jiraa sanadkayga labaad hadii dhamaanay insha Allah hadaan dhameeyno waxaan rabaa inaan wax ka qabto waxyaalaha ka taagan Soomaaliya insha Allah waxa ku xiga halkan Amal Amir magacayga waa Amal Amir Portland State University ayaa aada waxa bartaa business and marketing and accounting maasanta waxa ku xiga presidentka kooxda Yusuf Dahir magacayga waa Yusuf waxaan anigana sidoo kale aadaa jaamacadda Portland State waxaan bartaa accounting finance and leadership and management maasanta waxa ku xiga halkan Maxamed magacayga waa Maxamed I go to PSU I'm in the medical field gabadha yartaana magaceeda haysid gabadha gabadhan waxaa lahaa Fatma and she's going to be the future of PSU one day okay waxa ku xigta Shamsa Hussein Shamsa ali dhaha waxa student ahay oo PSU waxa bartaa social work AAS waxaan ka ahay a member ومعتصنتاي waxa ku xiga Abdi Fattah Hussein magacay waa Abdi Fattah Hussein waxaan ahay one of the leaders oo SSA-ga in medical field aan rabo inaan galo waa mahadsantiin daawadayaal maadaama maaragtay aad halkan ay magacyadooda ay noo sheegeen ardayda maaragtay dhigata Portland University ayna yihiin Somali Student Association in markale ku soo dhawaada dhamaantiina Somali TV aad baan nigu mahad celinaynaa sida sharafta la noogu timaadeen waxaan ku bilaabaynaa marka ugu horeeya presidentga Somali Student Association Portland University oo ah Yusuf Dahir Yusuf bal waxaan ugu horantaa marka hore goorta aad bilowdeen Somali Association Student Association Somali Student Association siisa waxa waaye koox ardaya isku tagay oo ardaydaas badankooda ay dhigtaan jaamacadda Portland State waxayna ay qaban qaabiyeen waxa jirtay arday ka sii horeysay ardayda hadda joogta oo sidoo kale ay kana qaabiyeen sanado ka hor ilaa 7 sano ka hor mar sanad walba marka waxa la isku dayay jiray in oo la hirgeliyo mar walba suurtagali waaday sababtoo ah markii hore sanadihii hore 5 sano 6 sano ka hor hadaad fiirisid Soomaalida ardayda aada jaamacadda Portland State way ku yaraayeen waa la tirinka jiray hadda laakiin maadaama aan ku badannahay waxaan bilaabnay sanadkii hadda la soo dhaafay ayuu noo hirgelay inaan si fiican iskugu imaano oo mar walba week walba ama week walba aan isku imaano meeting aan sameeyno marka waxa la dhihi karaa sanad iyo bar ilaa iyo adiga 2 sano intuu hadda noo si fiican u socdo alxamdulillah haddana waxa meel fiican aan ka mareynaa maasantahay marka tirisanadii sanadii bar waxa way 2010 ilaa hadda sanadkan lagu jiro aad baan u maasantahay Yusuf Dahir Cabdirasaaq Yusuf bal maadaama magacaada noo sheegtay halkan nooga waran bal adiga Somali Student Association waxa ka tahay iyo waxyaalaha qowti aniga waxaan ka ahay sida dadka qaarkood member ama qof ku jiro groupka ku jiro marka soo ku sheegay hay'adan waxa socotaa adiga sanad iyo bar hadda ilaa sanad bar marka waxyaalo weyn hadda ama events weyn wali ma aanan qabanin laakiin waxaan rajeynaynaa haduu Ilaahay raahdo inay noqoto macnaha inaan hormud u noqono Soomaalida inaan isku keeno Soomaalida inaan sabab gareen ama wax u qaban ardayda Soomaaliyeed ayagana jaamacadda soo galay oo ka imaanaya iskuulada Oregon High Schools marka muhiimadeedana waxa waaye saan horey buu sheegnay in ardayda Soomaalida aan wax u qabano maadaama ay jiraan organization kale Afrikaan ah inaan anagana lahaano qayb Soomaali represent gareyso ama Soomaali wax u qabato
marka insha Allah taasaan doonaya mahadsantahay cabdirasaaq yuusuf amal amiir maadaama aad Somali Student Association ka mid tahay bal nooga waran waxqabadkaada iyo hay'adda saad u caawisid waxaa ka qabta xawaaye in meesha waxa la sameyn lahaa in markasta waxa isla qabanaa Fataax iyo Yuusuf dadka oo markas isku imaado oo diyaariyo waxaan sameyn lahayn iyo meelaha resource aan ka heli lahayn dadka oo qabta waaye iyo students oo high school students dadka oo inay rabaan inay inta soo geliyaan along with the other members. soo caawisin oo mahadsan tahay halkan waxa nala fadhiyo dhinaca gabadha kale waxaan ka bilaabaynaa marka ugu horeeya Cabdifataax Yuusuf dhinaciisa Cabdifataax Yuusuf waxaan maqlay inaad tahay vice president-ga Somali Student Association maxaa bal noo waran ma jirtaa horta sax ma waa sax waaye waa Somali Student Association waa group oo ka mid ah Student Association group-yaasha oo studentka oo PSU ku yaalo waxay qabaan Arab students, Asian students, group badana jiro wadan kastaba wuxuu leeyahay group wax xafiis la siinayo marka anagana waxaan rabnay inaan nala arko aan Somali represent gareeno oo Soomaalida students meesha aadaan aan caawino iyo sida la isku barto oo la isku caawiyo iyo saan waalidiinteena ugu sheegi lahayn waxaan ka qabano Portland State University وما سنتها عبد الفتاح إن وحمص نقولنا شمس حسين شمس بالمجاعة وأنا شكتي إن واحد كتاي Somali Student Association يو حولها قبضت نوشك أني وحا هاي أرضي أو أدب Portland State University إن member كهاي Somali Student Association وحا واي إن association أدوغ فرح سنة إنه بلاده إن هاي واحد كله عن كقبطي حد درتان لجوجو مالها لكن واحد كنت لجرا إن على شقيو دتك أو leader كأه سي أبو عبد الرزاق وشيء أرضي الصومالية وكيني لهن أو بدين لهن ماشى هاي opportunity كجرا عن ودوين وقفور لهن أرضي الصومالي أو عدان سكولات ككلنتا أو هاي دوكسي سرق marka insha Allah hadda kulli waxaan qabtay malaha waa ku tala jiraa inaan la shaqeeyo ma santahay Shamso Maxamed bal magacaada noo sheegtay Somali Student Association maxaa tahay waxaan ka ahay member ka ahay I've been a member since the beginning of this school term of the school year and I've been attending meetings meelaha la isku yimaado ka qaybgeli jirtay you know talk about the future for our youth for us as well being youth and aad mahadsan tahay Maxamed daawashan daawanaya kulay adeen marka la nigu celiyo ardayda halka maaragtay ku martiqaaday waxay dhigtaan Portland State University and maadaama aan dad badan hore u wareysanay waxay noo suurta gashay maanta inaan maaragtay ayaga xagga waxbarashada aan ka wareysano iyo Somali Student Association ka waxyaalaha ay qabtaan marka aad baad mar kale ugu mahad celinaya waxaan rabaa inaan ogaado Yuusuf Daahir arintan aad sameynaysiin ma jirtaa community-yaal iyo dad kale maaragtay Soomaalida organization ay kala u badan baa jira adinka nagu caawiyaan ama talooyin ama wax kasta waa jiraan sida sheegtay waxaa jira community badan oo ka dhisan maxaa ama Kergala magaaladan Portland Oregon guud ahaan state Oregon waana la shaqeynaa waa la shaqeynaa wixii talo ah iyo wixii oo maxaa sida caawina ahba waan iska kaashana waxa kamid ah Somali organization-yada jira community Soomaali jira oo sida sheegay waxaa jira Oregon Somali Youth for Oregon oo Shamsi ay kamid tahay one of the leaders ay ka tahay leaderada qaarkood anaga dhan aan la shaqeynaa waxaa jiro group ay kana la baxay my voice Somali ah oo week hadda la soo dhaafay ka qabtay meeting weyn ka qabtay magaaladan Beaverton oo isku keenay waalidiin iyo ardayba high school kan Westview oo
حتى ومير كبيفرتن حتى وماشي laga marti qaaday uu joogay meesha waan joognay marka waxyaalo badan oo aan iska kaashana jirto community Soomaali oo fahmay in waalidiinta Soomaaliyeed in arin ma jirtaa ay nagu caawiyaan ama ay ka soo qayb galaan waxyaalaha ismiisi dhiirgelin ma nagu dhiirgeliyaan horta midda koowaad arin waalidiinta Soomaaliyeed wali maanan Somali Student Association sideedaba wali maanan isku keenin waa mid insha Allah aan ku tali jirno inaan maxaa waalidiinta Soomaaliyeed aan isku keeno oo yani iyakana aan xageena ugu sheegno meesha aan yani oo aan ka joogno waxbarashada iyo dhaqanka Soomaaliya dhaqanka America waxbarashada si u kala duwan tahay iyo maxaa waalidiinteena sida ay noogu ayagana noogu kala garab gali lahaayeen waxbarashada marka waalidiin badan waxaa jirto markaan jidadka isku aragno meelaha kale aan isku wada aragno oo na dhiirigeliyaan oo dhahan waxaan sameynayna fiican yihiin wayna ku faraxsan yihiin marka insha Allah waxa waa mid aan ku tala jirno noo soo socda ilaa hadii inaan isku keenno waalidiinta Soomaaliyeed ma santahay Yusuf waxaan u soo noqonayaa Shamso waxaan rabaa inaan ka wareysto maadaama aan la socono sida aan maqalnin waay laakiin adiga baa runtii og in jaamacadaha maaragtay gabdhaha ay u badan yihiin Soomaalida waxa ka mid ah wallahi arimahaas way soo gaareen waan maqlaa laakiin arday ahaan oo aada jaamacadda Portland State University waan arkaa wiilal dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaamacadda nala dhigtaan classroomka isku aragnaa hallwayga isku aragnaa marka way jirtaa waxa the stigma behind all dhahayo gabdhaha dhalinyarada ayaa u badan iskoolaadka wax ani qaasatan hadaa Shamso ka hadlo dhibaatada keenaysa waxa waaye anaga gabdhaheena hadii fursad aan haysano waxa laga yaabaa inaan dhahno iskoolka iska aadaya wax waan iska baranayaa oo dhibaatooyinkaas soo aragnay wadankeeni kuweenaan oo kusoo barbaaray wadanka Soomaaliyeed dhibaatada markay ka dhacday civil war-ka laakiin markii dhalinyarada wiilasha laga hadlo waxa laga yaabaa hadee fursad haystaan ay dhahan sports iska soo ciyaara waxyaabo kale oo ayaga maskaxdooda ka dhigayo busy ayaa iska jira waa wax arimahaas keeni karo sida dhalinyarada wiilasha Soomaaliyeed iskoolka u aadin maybe ba wallahi kolley aniga researchna ma ka akhrin sida haatan la joogo laakiin arimahaas way soo gaareen ba ma sha Allah sanadkii ugu horeeyay PSU aan aaday dhalinyarada wiilasha way ku yaraayeen laakiin hadeertaan sanadkii ugu dambeeyay waaye jaamacadda ani waa arkaa hadda inteenaan meesha fadhiso 4 wiil dhan jaamacadda aadaan ma sha Allah waa very good progress aad ma santahay marka adiga waxa leedahay ma ahan kaliya gabdhaha waxay u tagaan iskoolka waxbarasho iyo waxa way waxaysan qaban sida wiilasha maaragtay activity-ga ay u leeyihiin banooniga iyo meelaha maxaa gabdhaha u diiday wallahi hadii oo laga hadlo dhaqankeena Soomaaliyeed iyo sida banooniga loo ciyaaro dhaqanka Mareykanka ma xiran karno muxuu ahaayay dhararka qaar oo loogu talagalay sportska waxa jirto waxa la dhaho motivation anaga waxa laga yaabaa gabdhaha inay dhahaan okay inta ani banooni ciyaari lahaa waxba iska soo baranaya wax kale aan sameynaa wiilashana arimahaas way leeyihiin maskaxdaas ma dhahayo wiilashana ma ku fikiraan saas laakiin dhaqankeena diinteena hawlahaas aan oo diidayo inaa muxuu ahaayay wiilasha la ciyaaran sports ma santahay waxaan ku soo noqonayaa Cabdi Rasaaq Yusuf maxaa qabtaa fikradaas dhalinyarada wiilasha ku yar yihiin